waxaan rabnaa inaan u yeerno khubaro oo dhinaca dhaqaalaha iyo maamulka ah inta ka joogto yaxye caamir maxamed xasan bare doctor axmed ibraahim doctor cusmaan saciid cilmi doctor cabdulaahi maxamed axmed nuur maxamed cabdi cabdulaahi maxamed aadan maxamed cusmaan maxamuud mahdi cabdikariim daa'uud cabdinuur cali maxamed waxaan rabnaa khubaradu ayaguna waxay leeyihiin 20 daqiiqo inaad idinka naftiinu timeka nala ilaalisaan aan rabnaa khubarada maadaama aad wax badan ka fahmaysaan waxaan rabnaa inaan kugu soo dhaweeyo floorka waxaa ugu horeeya yaxye caamira ugu horeeyo waa idin salaamay dhammaantiinba xildhibaanada ardadayda iyo classmateskayga u badan waa salaamantiin iyo ka qaybgalayaasha way 2 daqiiqaadna siiseen marka waxaad naga sugaysay contribution asuguna 2 daqiiqa qiimihiisu la-agta mid ka badan ma isdiin laakiin anagaa sii kala qaybsanay okay muhiimadda miisaaniyad waxay muujinayaan shaqada dowladdu ay qaban doonto muhiimadda ay u leedahay waxaa laga akhristaa miisaaniyaddeeda horta waa ku faraxsannahay mar miisaaniyadu ayna jirin aana soo martay haddiiba aad miisaaniyaddu laga doodayo maanta habiska qalad badnaatee oo leeyahay tan ha laga soxo ha laga tashado intaas waa ilaahay mahadiisa miisaaniyadda marka shaqada dowladdu waxa ay qabanaya muhiimadda haddii laga fiirinayo masalan waxaa la yidhi biyaha waxaa la cashuuraa 5% internet iyo telefishonna 5% isku muhiimad ma u leeyihin bulshada marka muhiimadda internetka iyo biyo isu kaamiday noqdeen biyaha waxay ahayd inay ka yaraadaan waxyaaba entertainmentiga internet iyo tv waxaa isticmaala dabaqada sare ama dabaqada dhexe qaybteeda sare laakiin biyihii oo qof kasta duruur u ah nolosheeda cashuurta aad ka qaadayso inaad la ekeysatid tv-ga meeshasi wax laga bedelo waa jeclaan lahayn haddaan loo arkin isku mid inay yihiin tan kale muhiimadda hawsha la qabanaya ay leedahay waxaa laga akhristigaa miisaaniyaddeeda hay-adda naafada iyo agoonta ciidamada miisaaniyaddeedu waa 115 kun macnaheedu maxay noqonaya mooralka ciidamadu aaduu u dhacaa inaan dowladdu dan ka lahayn ama ninka miisaaniyaddan dejiyay inuu dan ka lahayn naafada iyo agoonta ciidamada haddiiba miisaaniyaddoodii laga dhigay 115 kun taasna waa jeclaan lahay inaad wax ka bedeshiin wasaaradaha wax soo saarka ee la sugaaya lacagaha badan ay kaa soo galayaan sida xanaanada xoolaha iyo beeraha oo kale midna waa 900 iyo jajab midna waa 1 milyan iyo wax yar wixii kaa soo galo inaad ku celiso lacag badan oo ka mid ahay ahayd si sanadka dambe lacagta ay dib kaaga soo noqoto laakiin nasiib darro dowladda xoolaha meesha laga dhoofinaya xakutaa marka cashuuray ka qaadeen hadday lacag ka qaadeen laakiin meelay dib ugu celiso ma joogto ma xakunta deegaanka baadiyaha ay dowladu ku nool duurjoog aymin xooluhu ku nool yihiin sidaa daraaddeed in xisaabta daawo xoolo lacag lagu bixinayo ilaa lacagta iyaga ka timid si sanadka dambe xoolo badan oo caafimaad qaba ay kugu dhoofaan tan kale waxaa ku jirta miisaaniyadda akadeemiya goboleedka af soomaaliga miisaaniyaddeeda wasaaradaha qaar waa ka badan tahay 1 milyan iyo 324,200 xaggee ku taalaa jabuuti meel qofaa ka shaqaysa hal qofaa ka shaqeeya miisaaniyadda intaasna waa leedahay in la dabagalo waa jeclaan lahay waddanka meelay ka degan tahay ma jirto miisaaniyad kheyr caadiyana waa leedahay shaqaalaheeduna hal qof haddii hadda halkan loo qoro moogi hala hubsada iyadana kii waxaa jirta hay-addi kale oo cilmi baarista fanka iyo suugaanta laysugu geeyey miisaaniyaddeedu waa kaga tahay hay-addaas aan jirin ama jirto laga yaaba in hadda si loo naashnaashay ee jabuuti ku taal waxay ka miisaaniyad badan tahay hay-addi dhammeedoo cilmi baarista iyo fanka iyo suugaanta isku ahayd iyadana in dib loogu noqdo lafdhabarka waa dhallinyarada la yidhaha markasta marka haddana waxaa layihaha lafdhabarku waa haweenka labada wasaarood miisaaniyaddoodu mid 1 milyan dhantaa kuma jirto labadaba mid kasta 1 milyanay ka yartaa muhiimad gaara lama siin marka idaacadaha ka maqlaysid dhallinyaradu waa muhim wasaaraddooduna waa 692,570 tii haweenkana waa less than 1 milyan iyaduna muhiimad gaara lama siin wasaaradahaas haddii loo fiiriyo waana wasaarada bulsho waxqabadkaaguna wuxuu ka dhex muuqanaa miisaaniyadda adigu tala gashay xafiiska
socdaalka xafiiska madaxweynaha iyo socdaalka xafiiska ra-iisul wasaaraha shaksiga ma fiirinin waxaan fiirinaa shaqada ay u qabtaa bulshadu ra-iisul wasaare waa executive shaqooyinka dibadda oo dhan qofka u safri lahay waa asiga miisaaniyadda xafiiska madaxweynuhu laba jibaari ka badan tahay tii ra-iisul wasaaraha yaa safar badan marka safaro shaqaan ka hadlaynaa haddii lagu salaynayo waxay ahayd xafiiska ra-iisul wasaare in miisaantaas u badnaato qaybta socdaalka dibadda marka la joogo tii kaloo hadda qofkaa ka hadlayay duurjoogta iyo bay-adda oo kaba badanba wasaaradaha qaar ku dhow dhow duurjoogta noo joogto waa sagaaro iyo unreys keliya ku hara iyagana wax looma qabto hala soo waraysto marka miisaaniyaddaas intaas leeya loogu talagalay meelaha kaleoo ka muhiimsan ha loo bedelo wasaaradaha kaleo aan muhiimadda qaara la siinin waa wasaaradda diinta iyo awqaafta waa less than 1 million wasaaradda cadaaladduna waa less than million labadaba muhiimad gaara in la siiye kama muuqato asluubta nasiib wanaag waddankeena dembi kama dhacaan walaynaa dadna xabsi kuma jiraan nus milyan waa miisaaniyadda haddii dunuubtu badan tahay maxaa la filaya dad badan maxaabiis in kharaj baa loogu talagalo kharaj badan kharajku wuxuu muujinaa waxaa ka jira asluubta marka dad badan inuuna ku xirayn ama in loo baahnayn in lagu xiro haddii miisaaniyaddooda laga dhigay nus milyan waa half milyan xoogaa yar xoogaa excuse me waa ka badan taha xoogaay ka badan taha raalli ahaada wasaaradda dastuurka maxay qabataa dastuur qoran oo wax yar yar in lagu dardaro u baahan in wasaaraddiisa 3,472,000 la yidhaah ee weliba la sameeyo guddiga madax bannaan ee haddana dib u eegidda dastuurka ee more than half milyan iyana loogu daro waxay la tahay inaan loo baahnayn dhowr khubaraha ku filan wasaaraddaas inay ka shaqayso inay 3 milyan lacagteedu gaarto aaday u khaldan tahay weliba haddana guddi lagu sii kabay asna miisaaniyad gaara loo sameeyey guddiga xuduudaha federaalka weli xuduudo federaal oo la kala jaraayo wax yaraa ku filnaa lahay nus milyanay ka badan tahay guddiga dib u heshiisiinta waa u fiicnaa lahayd inkastoo half milyan laga dhigay hadday jiraanba in loo kordhiyo iyadana waa jeclaa lahay waxaa kaloo ilaahay mahaddiisa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka horta wax kasta qarankaa layidhi miisaaniyadda qaranka miisaaniyadda qaran miya xisaabiyaha qaranka xalaalaha qaranka hebelow qaranka miisaaniyaddan waa miisaaniyad gobolka banaadir haddaa fiiriso kuma arkaysa wasaaradda xanaanada xoolaha qayb ay ugu talagasha xoolaha afmadow ku nool kuma arkaysa wasaaradda beeruhu qayb ay ugu talagasha beeraha baay marka wasaarad miisaaniyadda magacaa isaga qurxina okay laakiin ma mar in lagu daro oo la muujiyo gobolladu inay wax ku leeyihiin laakiin miisaaniyadda waxay ku koobnaatay muqdisho waxaa layidhi guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka goormada doorasho baa hadda dhacayso 2018 2 milyan iyo wax la jiray leeyihiin dhowr wasaaraday ka mushaar badan yihiin guddigaas waana sanadka soo socda miisaaniyadda ay isticmaalayaan sanadka soo socda doorasho qaranoo jirto ma ogi baaraandegeeda haddii la yidhaahna intaas kuma bax xaq ule half milyan 2 milyanna ka soo jirtiin meeshaas waa ila habboonaa lahayd waxaa ilaahay mahaddiisa miisaaniyadda waxay muujinaya dhibka jiro hadduu badan yahayna waxaa loo badiyaa lacagta loogu talagalo oo lagu xalinayo ilaahay mahaddiis waxaa ah waddankeena musuqmaasuq kama jiro haba yaraadeen sababtoo ah 300 kunaa loogu talagalo guddiga la dagaalanka musuqmaasuq waxaad dareemaya marka muhiimadda uu la egyahay intay la egta muhiimad ma leh macnaheeda haddii qof ajnabiya oo akhriyo hadda wuxuu arkaa waddankan musuqmaasuq kama jiro liiska musuqmaasuqa nambarona uga jirnaa dhinaca kale 300 kun qiyaas guddigii dabi eegidii waxaa leedahay dhowr milyan loogu talagalay guddigii dhammaa ee la dagaalami lahay musuqmaasuqa oo guddi dastuuri ah weliba guddi dastuuri ah in 300 kun bajetkiisa laga dhigo yaa wax la qaban waayo marka guddigaas waxaa jeclaan lahayn in lacagta loo badiyo si shaqo badan ay u qabtaan guddiga dastuuriga miisaaniyadda waa ku jira lacag ku leeyahay 300 kun ugu qoran haddaa xubin ka tahay ka raadso okay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta waa lesta 1 milyan ka yarta maaraynta iyo musiibooyinka guddi ah laga dhinac sameeyey waa fulskeeda oo miisaaniyadu leeyahay in wasaaradda hay-adka laga dhiga agaasin ka mid ay ahayd oo miisaaniyaddaasna la israaciyo ayadana ilaah boona inta mar kastaba guddi madax bannaan bannaanka laga soo qaadi lahay tan kale xafiiska ra-iisul wasaaraha iska dha miisaaniyaddiisa guud la taliyayaashiisa 741,552 ah ku baxdo
inkastoo hadda dowladdu mar ay arka ay dalbatay 320 la taliya maaqa meel in lacag la heli doono iska mid soodaa la taliyayaasha ka shaqeeya xafiiska dhalinyaradu waxay ka mushaar badan yihiin ama waxay ka miisaanad badan yihiin wasaaradda isboortiga dhallinyaradoo dhan la taliyayaasha keliya ka badan la taliyayaashu waa 741 kuwan waa 692 marka la taliyayaal hal xafiis ka tirsan inay wasaarad dhan ka miisaanad badiyaan waa culaysa ay wada jiro tan kale adaa iska soo kooda asxaabtayda u baahan iyana markaad fiirisid miisaaniyadda waxaad u malaysaa in lagu saleeyo 4.5 intee wasaaradaha miisaaniyaddooda ka yar tahay 1 milyan ama waxay ka yar 0.5 kaa leh ama haween qof kale wasiir kama dhaqan karto adiga fiiri wasaarad kasta oo miisaaniyaddooda 1 milyan ama wax ka yar ay tahay ama naagaa wasiir looga dhigaa ama 0.5 kaa loo dhiibaa wasaaradaha 2 milyan ka badan qolyaha kalaa marka meeshaas inaad fiirsiin waa jeclaanaa saaxiibada waqti u baahan iga raalli ahaa professor su-aal miisaaniyadda oo markaa fiirisa labada aqal dadka ugu mushaar badanaa tiin waddanka labadaba qadaa idinkugu jirto raashinaa ku qoran raashinkaas iska tira hoos u akri bracket raashinaa ku taal halaga tira marka waa mahadsantahay